أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa oo aynu bilowgeeda joognaa bishii barakaysneed oo Ramadaan. bishaan waxaan ugu talagalnay inaanu ku qaadano duruus ramadaaniye ah oo bisha ka hadlaysa munaasabooyinkeeda, maalmaha bishu ay socoto oo 30 maalmooda annagoo ku cabirayna haddii Ilaahay yidhaahdo. duruustaas marka waxa weeye labadii casharo ugu horeysay ayaanu soo qaadanay oo ka hadlayay fardiyatu sawmi ramadaan, haddii ay tahay aayadaha qur-aanka ah iyo axaadiisa bacdigooda ayaanu soo qaadanay. hadda waxaanu halkan ku qaadanaynaa darsigeeni 3aad oo ka mida duruusteena ramadaaniyada ah oo bishaan ramadaan aynu ugu talagalnay. waxaanu soo qaadanaynaa xadiis ayaanu soo qaadanaynaa oo laga wariyey saxaabiga la yidhaahdo nadar ibnu shaybaan. ninka nadar ibnu shaybaan la yidhaahdo ayaa waxa uu yidhi: qultu liabi salamata ibni cabdiraxmaan. ninka la yidhaahdo abi salamata ibni cabdiraxmaan ayaan waxaan ku dhahay xadisnii bishayin samictahu min abiika samicahu abuuka min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama laysa bayna abiika wa bayna rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama axadun fi shahri ramadaan. waxa uu dhahay ninka la yidhaahdo nadar ibnu shaybaan, waxaan ku dhahay ninka la yidhaahdo abi salamata ibni cabdiraxmaan ayaan waxaan ku dhahay waxaad iiga sheekaysaa shay oo waxa weeye aad ka maqashay aabbaha oo waxa weeye cabdiraxmaan ah, aabbahaana uu ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. cid markaasi aabbaha iyo nabiga u dhaxaysa na aysan jirin oo waxa weeye aabbaha si toosa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugaga dhegaystay. xadiiskaasoo markaasi ku saabsan bisha ramadaan oo barakaysan ku saabsan. markaas wuxuu dhahay uu yihi: nacamhaa, waan kaaga warramayaa. xadasanii abi, aabbahay wuxuu igaga warramay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. qaala wuxuuna yidhi aabbahay: qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, ilaahi rasuulkiisa ayaa waxa uu yidhi: ina allaha tabaaraka wa tacaala farada siyaama ramadaana calaykum wa sanamtu lakum qiyaamahu faman saamahu wa qaamahu iimaana waxtisaaban kharaja min dunuubihi ka yowmi waladat ummuhu. rawaahu nasaa'iyu wa axmed. waxa uu dhahayo wuri: waan kaaga warramayaa, aabbahay ayaa ii sheekeeyey. waxaana uu yidhi: aabbihii si toosa oo uga qaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. rasuulku wuxuu yidhi u dhahay calayhi salaatu wasalaam: alla subxaanahu wa tacaala waxa uu farad yeelay, farada siyaama ramadaana calaykum. haddaad tihiin ummatulmuxamed, dadkiinaan muslimiinta ah, alla subxaanahu wa tacaala waxaa idinku farad yeelay bisha ramadaan soonkeeda ayuu idinku farad yeelay. xadiiskaas marka bilowgiisu wuxuu noo caddaynayaa sidii axaadiistii hore oo aanu ku soo qaadanay labadeenna casharo horo
casharkaanna waa casharkeeni saddexaad ama waa darsigeeni saddexaadi inuu ramadaan uu farad uu yahay oo ummadatan farad uu ku yahay ayaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku caddaynayaa oo ummadatan ilaahay subxaanahu wa tacaala ramadaanka uu ku farad yeelay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu dhahay farada calaykum siyaama ramadaana, ilaahay wuxuu idinku farad yeelay bisha ramadaan soonkeeda. macnaha waxa weeye bisha ramadaan ayaa laydinku farad yeelay sidii axaadiisi aanu soo marnaba sidaas oo kale ay u ahaayeen. wa sanantu lakum qiyaamahu, aniguna waxaan idiin jideeyey bisha ramadaan inaad quntaan ood u kacdaan ood cibaado aada samaysaan. macnaha waxa weeye wa sharactu lakum qiyaamahu waxay noqonaysaa sharactu lakum qiyaamahu calaa wajhi sunniyati. wa sanantudaan waxa weeye waxaan idiin jideeyey, macnaha waxaan idiin jideeyey wej oo markaasi sunno ah oo aan markaasi farad idinku ahaynin. maxaa yeele ramadaanka haddii la sameeyo oo la soomo acmaasha dhexdiisa la samaynaayo oo salaatu taraawiix ay ka mid tahay, qiyaamu ramadaan uu ka mid yahay oo dhan, qiraa'atulqur'aan ay ka mid tahay, tahajudkii uu ka mid yahay, waxyaabahaas dhammaantooda wax markaasi sunno ah weeye. marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay anigu waxa weeye waxaan idiin jideeyey inaad bishaas ramadaan aada u quntaan, ilaahay daacadiisa aada u quntaan wej oo markaasi sunnanimo ah. taas marka waxay ku caddaynaysaa shaygu haddii uu sunno yahay ousan farad ahaynin, shay markaasi tarkigiisa uu bannaan yahay weeye. maxaa yeele sunno waxaa la yidhaahdaa oo culummadu markaasi ay ku xadeeyeen maa yusaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarkihi. shay waxa weeye haddii la sameeyo la yska sawaabinayo, haddii laga tagana aan la ysku ciqaabaynin. faralku waa sidaas cagsigeeda, waa sidaasi ka duwan. oo faral markii la yidhaahdo muxuu yahay? faralku waxa weeye maa yusaabu calaa ficlihi wa yucaaqabu calaa tarkihi. macnaha markii hadda aanu baranno waxa faral la yidhaahdo iyo waxa sunno la yidhaahdo farqiga u dhexeeya. ilaa hadda xadiiska waxaa iskula jira ramadaankii faralnimadiisa iyo acmaasha lagu samaynayo dhexdiisa sunnanimadeeda. maxaa marka farqiga u dhexeeya uu yahay? faralku waxa weeye maa yusaabu calaa ficlihi, wax haddii la sameeyo la yska sawaabinayo oo la yska ajir siinayo, wa yucaaqabu calaa tarkihi, haddii laga tagana la ysku ciqaabayo. oo qofka hadda bisha ramadaan asoon qof macduur aan ahaynin saa horuu soo marnay ka taga waa lagu ciqaabayaa. qofkii salaada ka taga waa lagu ciqaabayaa. qofkii sekada asoo maalkiisu nisaab gaara bixi waayo waa la ciqaabayaa. qofkii asagoo xaji karoo xaj ku waajibay xajkii ka taga waa loo ciqaabayaa. wax kasta oo faral ah haddii laga tago waa la isu ciqaabayaa, haddii la sameeyane waa la iska sawaabinayaa. laakiin sunnadu sidaas ma ahan. hal daraf waxay ka leedahay, faralkay ka leedahayo waxaa la leeyahay maa yusaabu calaa ficlihaa weeye. sunnada waxa weeye haddii la falo oo la sameeyo qowl iyo ficil waxay tahaba waa la isku sawaabinayaa oo ajir baa laga helayaa. walaa yucaaqabu calaa tarkiha, laakiin waxa weeye haddii laga tago la isku ciqaabi maayo. saasay marka ku kala duwan yihiin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu leeyahay in allaha tabaaraka wa tacaala farada siyaama ramadaana calaykum. ilaahay nasahnaaye oo kor ahaayaye cadamadiisa iyo kibriyadiisa ilaahay kor ahaaday. bisha ramadaan inaad soontaan ayaa ilaahay idinku faral yeelay. anna waxaan idiin jideeyey si sunnanimo ah oo calaa wajhi sunniyati ah
inaad quntaan ood kacdaan ood cibaadaysataan ood acmaal khayriya aada samaysaan. kolkaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam faman saamahu wa qaamahu iimaanan waxtisaaban kharaja min dunuubihi ka yowmi waladatu ummu. arrintaas haddii la sameeyo maxaa laga helayaa? rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii sooma oo u quma bishaas ramadaan cibaadada sidii salaatu taraawiixii oo kale, tahajudkii oo kale, qiraa'atulqur'aanki, adkaartii dhammaanteeda oy markaa ay ka tahay iimaanan waxtisaaban, rumayn uu rumaynaayo oo waxa uu rumaysan yahay soonkan faralnimadiisa ayuu rumaysan yahay, haddana ajir ayuu dalbayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dalbayaa acmaasha uu samaynaayo. maxaa yeele ramadaankii haddii aanu soonno farad ayuu nagu yahay, daacada aynu samayhayno oo salaatu taraawiixi ay ka mid tahay oo hadda shacaa'irta ramadaanka gudihiisa la samaynaayo midda ugu weyn ay tahay qiraa'atulqur'aanki, waxaasoo dhan salaatu taraawiix insha allahu tacaala waa ku tegi doonaa. fadaaishay iska leedahay, kayfiyada loo dukanaayo waa ku tegaynaa haddii alla yidhaahdo. iyo markaasi waxa weeye asagoo dalbaaya ajir ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dalbaaya. macnaha meeshaas maxaa kaaga cad? haddii ajir ilaahay subxaanahu wa tacaala aan laga dalbayn oo wuxuu lilaahi aysan ahaynin waxba inaan lagu dheefayn. camal kasta oo la samaynaayo waxaa loo baahan yahay dar alla in loo sameeyo ayaa loo baahan yahay. haddaan wuxuu lilaahi aysan ahayn waxba lagu dheefi maayo, camalku si kastaba ha u farabato. maxay rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu salaam iimaanan waxtisaaban. waa markii ramadaankii la soomo, qiyaamkii lala yimaado oo markaa ay tahay iimaanan waxtisaaban ay tahay, rumayn la rumaynaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ka sheegay, faralnimadii ilaahay faral uu ka dhiga soonka iyo jidayntii nabigu calayhi salaatu salaam uu jideeyey daaco in lala yimaado, kharaja min dunuubihi. markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu salaam dunuubtiisa ayuu ka dhex baxayaa, dembigaa laga qaadayaa. ka yowmi waladatu ummuhu, dembiga ayuu ka baxayaa isagoo lamid ah maalinta hooyadiis dhashoo kale. hadda qofku waad ogtihiinoo qofku haddii waxa weeye hooyadiis ay dhasho oo ifka adduunka uu yimaado, qof mukallafa ma aha. qofku waxau mukallaf noqonayaa markuu xaddulbuluuq ou gaaro ou qaan gaaro ayuu mukallaf noqonayaa. waxaa laga wadaa qofka markaasi dhashay oo hadda haatan waqtigaan hadda markaasi saacaddaas la joogo dhashay, amase ha dhasho waqti horeba ha dhasho oo intuu xaddulbuluuq qofku ka gaaraayo qof dembila ma aha. markaasaa weliba waxaa laga sii dhigayaa maalinta hooyadiis dhashay, ka yowmi waladatu ummuhu, maalinta hooyadiis dhashay isagoo lamida ayuu dembiga ka baxayaa. marka macnuhu waxaa weeye faman saamahu musadiqan bifardiyatihi, qofkii sooma bisha ramadaan isagoo rumaynaaya faral inuu yahay ramadaanka soonkiisu iyo afdaliyadiisa inuu fadli badan yahay, dalaban liljri min allahi tacaala, isagoo alla subxaanahu wa tacaala ajir ka raadinaya, gufira dunuubuhu kulluhaa, dunuubtiisa dhammaanteed waa la dhaafayaa. hadda meeshaan culummadu way ta'wiiliyaan ka yowmi waladatu ummuhu, maalinta hooyadiis dhasho oo kale ayuu noqonayaa. su-aasha marka meesha ku jirtaa waxay tahay, hadda waxa weeye dunuubtii dhammaanteed miyaa bisha ramadaan soonkeeda lagu dhaafayaa? xadiiska daahirkiisu saasou sheegaya. maxaa yeele qofku intaas hadduu sameeyo bishii ramadaan ou soomo, qiyaamka ou la yimaado, in dembigiisi la dhaafaayo oo habeenkii hooyadiis dhasho oo kale uu noqonayo ayaa rasuulku calayhi salaatu salaam noo sheegayaa. hadda marka dunuubna sideedaba markii laga soo noqonayo waxaa weeye kabaa'ir hadday tahay shuruuday iska leedahay, hadday xuquuqullaahi ay tahay oo saddexa, hadday xuquuqul aadami ay tahana 4 gaaraysa oo mashhuurahoo la yaqaano, markii axaadiista baabu tawba laga akrinayo ayaa la akriyaa. haddaan waqti kale aan keli ka gaarno oonu haleeli karnana waanu ka warrami doonaa. marka hadda qofkan ramadaankii iska soomay
oo daacadii la yimiday sidaas maa dembigiisoo dhan lagu dhaafaya mase waa sidee? xadiiskan waa la ta'wiilinaya ta'wiilka ugu badan oo aimada culamaa ul islaam muxadisiinta iyo ay qabaan waxa weeyaa la leeyahay dunuubta saqaa'irta ah oo xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysa ayaa loola jeedaa. inuu ka tawbo keena mayuusan u qasdin mar hadday dunuubtu saqaa'ir ay tahay. waxa weeye saqaa'ir iyo kabaa'ir farqi baa u dhexeeya. imaamka weyn oo maaragtay ibnu cabbaas xabru caalim ulumma waxa uu markaasi kabaa'irta waxaa la dhaha u dhahay wixii xuduud ay ku soo aroortay ama waciid oo ku soo arooray, sida masalan ba qiibadoo kale, xantoo kale xuduudu kuma soo aroorin, laakiin waxaa ku soo aroortay waciidaa ku soo arooray. dunuubta faraha badan, dunuub badan oo waciid ku soo arooraa jira ayaa jirta, laakiin waxaa weeye xuduud aysan ku soo aroorin. wixii marka intaas ka soo harana waxaa la yidhaahdaa saqaa'ir ayaa la dhahaa. saa'iru dunuub marka waxaa lagu dhaafayaa, soonkaa lagu dhaafayaa, weesaqaadkaa lagu dhaafayaa, sadaqadaa lagu dhaafayaa. laakiin kabaa'irta in markaasi loo qasdo oo markaasi shuruuddaas lala yimaaday ku xihanta. xadiiskana hadda sidaana uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu salaamu, daahirka xadiiska hadda kabaa'ir iyo saqaa'ir looma kala saarin. sida markaasi jamhuurta culamaa ul islaam ay u badan yihiin, waxaa laga wadaahaa la leeyahay meelo badan markii la fiiriyo dunuubta saqaa'irta ah oo xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysa, xuquuqul aadami aan ku tacalluqaynin, ayaa lagu dhaafayaa soonkaas la soomay ee haddana waxa weeye daacada lala yimiday, taas ayaa lagu dhaafaya oo saasaa loola jeedaa. culimo badan oo hadda meelo badan waa ugu tegi doonaane laftirkooda aan yarayn waxay yidhaahdeen fadliga ilaahay iyo wusciga ilaahay fadligiisa waasicow yahay haddii la fiiriyo. xadiiskana hadda daahirkii sida tan uu yahay, ilaahay fadligiisa waasaca haddii la fiirsho dunuub lababa kala reebaya dheheen, kabaa'ir iyo saqaa'irba waa lagu dhaafaya. dadkaas laftirkoodu dad yar ma ahan, laakiin dadka jamhuurta waxay u badan tahay in ta'wiilkaas xadiiska loo yeelo. ilaahay fadligiisu waa waasac subxaanahu wa tacaala. marka bisha ramadaan inaanu soonno oonu daacadeedii la nimaado oo aanu qiyaamkii la nimaado, sidaa hadda meelo badan ugu tegi doonana waxaa weeye qiyaamu ramadaan si gaar ayaanu u qaadan doonaa. faa'iidada uu leeyahay wax yar ma ahan, ee bisha yaan lagu ekaanin in uun faralka kaliya markaasi lagu ekaado. sababtoo ah hadda wacdiga kani waxa uu yimiday markii rasuulku uu dhahay calayhi salaatu salaam, faman saamahu wa qaamahu iimaanan waxtisaaban markuu dhahay, ayaa ka bacdi rasuulku wuxuu dhahay kharaja min dunuubihi ka yawmi waladat ummuhu. xadiiskaas marka waxaa weeye waa xadiis imaamu nasaa-i ayaa weriyey, sanadkiisuna waa wanaagsan yahay. imaamu axmed ibnu xambalne musnadkiisa ayuu ku wariyey. halkaas marka waxaa weeye xadiis waxaanu ku qaadanay fardiyatu sawmi ramadaana qayb ka ah, qaybna markaasi waxa weeye markaasi ramadaanka acmaasha la samaynaayo oo sunnada ah qayb ka ah ayaanu qaadanay. waxaan hadda markaasi aan u gudbaynaa falaa'ilu soom, soomka la soomaayo falaa-isha iyo markaasi waxa weeye ajirka uu iska leeyahay ayaanu maaragtay qaadanaynaa. marka hadda soonku wuxuu iska leeyahay falaa'il fara badan ayuu iska leeyahay. waxaa ka mid a falaa-ishiisa xafiidun lisaaxibihi min aldalaali fi dunya. waxaa weeye soonku qofka sooma waxa uu ka xifdinayaa ama uu ka ilaalinayaa baadi inuu ku dhaco, adduunyada dhexeeda uu baadi ku dhaco. aakhirana wuxuu ka ilaalinayaa cadaabu naar, inuu galo naarta lagu cadaabo ayuu ka ilaalinayaa. haddana waxa weeye soonku cibaado oo khaasa billaahi tacaala lam yucbad gayruhu bih. waxa weeye cibaado ilaahay keliya u khaasa weeye. soon ilaahay keyrkiis laguma caabudin, salaad ilaahay keyrkiis waa lagu caabudo. haddee
waad aragteenoo dadkii mushrikiinta ahay asnaam bay u sujuudi jireen, salaad u dukan jireen. xadiiskan arrintaas ka warramayna waa noo soo socdaa. marka soonku wuxuu cajiib uu ku yahay, waa cibaado ilaahay kaliya u khaas. sababtoo ah qofku markuu saa'im yahay, qofka warqabtaahi ma jirto, inuu wax cunay inuu wax cabay cid ogaa kartaa ma jirto. laakiin qofka markaasi salaada markuu dukanaayo waa laga warqabi karaa, markii waxaa weeye jihaad uu gelaayo waa laga warqabi karaa, markii saka uu bixinaayo waa laga warqabi karaa, markuu xijinaayo waa laga warqabi karaa, oo intaasoo dhan waa la arkaa. laakiin soonku waxa weeye cibaada khaasa billaahi subxaanahu wa tacaala, waa cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis ku khaasa weeye. sidaas daraaddeed ayaysan suurtagal noqonin ilaahay keyrkiis in lagu caabudo. haddana waxa weeye soonku qofka magiciisa ama xuskiisa ayuu kor u qaadayaa calaa ru'uusil ashhaad. maalinta qiyaamo markii maxsharkii la isugu yimaado ayaa qofka saa'imka ahayoo soomi jiray khalaa'iqdii oo dhammoo joogta ayaa waxa weeye magiciisa kor loo dhigayaa. horayna saan u soo qaadanay, haddana qofka jirkiisaa ku caafimaadayo cudurkaa looga caafimaadaya. soonka qofka u malaynaaya inuu dhibaato gaarsiinayo, soonka dawo ayuu noo yahay. xataa dadka dhibbiga ka shaqeeya oo waxaa weeye cilmiga oo dhibbiga oo markaasi dhaktarnimada waa fahmi karaan. sababtoo ah caloosha bani aadamka sida badan waxaa cudurkiisu u badan caloosha ayaa u badan. sanadku waxa weeye waa 12 bilood. 11 bilood calooshaas marka wax lagu soo shubaayo oo lagu soo shubaayo, calooshu waxay u baahan tahay marka in la faaruqiyay u baahan tahay, oo waqti markaasi nasiina ay qaadato. xagga caqligaa lagu fahmi karaa calooshu inay nasiino qaadato ayay u baahan tahay. sababtoo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankan iyo makhluuqan ilaahay ayaa tarkiibiyo isku rakibay. wixii masaalixdoodana alla subxaanahu wa tacaala isaga ayaa yaqaana. marka soonku maslaxadeenna weeye. wuxuu maslaxadeenna ku yahay caloosha waa la faaruqinayaa, way nasanaysaa. wixii 11 bilood wixii lagu soo shubaayey waxaa laga yaabaa maadooyin oo sun ah xataa inay ku jiraan, oo haddii waxa weeye bishaas ay firaaqo hesho inay markaasi ka caafimaado ayaa markaasaa imaanaysa. marka hadda soonku waaba kii la isku daweynahay. dawo markaa raadinaysid, soonku waaba dadka muslimiinta ilaahay u dooray subxaanahu wa tacaala. marka soonku waxaa weye waaba dawo, ajirka ayaa lagu weyneynayaa, alla subxaanahu wa tacaala ayaa loogu dhowaanayaa. xadiisaa wuxuu ahay rasuulku calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay, ucdiyat ummatii fii shahri ramadaana 5 lam yucdahunna nabiyun qabli. ummadayda waxaa la siiyow dhaha rasuulku calayhi salaatu salaam bisha ramadaan 5 oo aan la siinin nabi maaragtay aniga iga horreeyey. mid waxaa weeye haddii habeenka idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaan, habeenka bisha ramadaan ugu horeysa markii la joogo, yanduru llaahu caza wajalla ilayhim, ilaahay subxaanahu wa tacaala addoominkiisa waa fiirinayaa. fiiradaanu fiira khaasa weeye, nadra raxmatin ayaa la yidhaah. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa il raxmadeed au ku fiirinaya alla subxaanahu wa tacaala. waman nadara allaahu ilayhi lam yucadibhu abadan. ilaahay qofkau il naxariis ku fiirshana ilaahay weligiis cadaabi maayo. marka il raxmadeed ilaahay inuu nagu fiiriyo waxaanu ka helaynaa bisha ramadaan ayaanu ka helaynaa. soonka yaan laga harin oo ilaahay naxariisiisu iyo saas nagu dhaafin. midda labaad waxaa wey rasuulku calayhi salaatu salaam, midda labaad waxay tahay fa ina khaluufa afwaahihim xiina yumsuuna adyabu cinda allaahi min riixi lmiski. waxa weeye afkooda dacarta ka soo baxaysa ama waxa xayaabada fuulaaya markay galabtii la gaaro maantoo dhan soomnaayeen, ilaahay agtiisa miskigay ka caraf badan taha. miskiga wax carfay ka caraf badan taha. xadiiskaasna waa ku tegi doonaa. midda saddexaad waxaa weeye malaa'igtu waa u dembi dhaaf dalbaysaa maalin kasta iyo habeen kasta. dembida waa u dembi dhaaf, tastakfiru lahum fii kulli yawm wa leylati.
midda afraad waxaa weeye fa in allaha caza wajalla ya'muru jannatahu ilaahay jannadiisa ayuu amrayaa markaas waxau dhahaa ilaahay jannada wuxuu ku leeyahay istacidii isdiyaari jannay watasayinii isqurxi licibaadii addoomankayga saa'imiinta waxaa soo degdegaaya inay ka soo raaxaystaan adduunyada tacabkeeda iyo dhibaatadeeda ilaa daariyi wa karaamatii daartayda iyo karaamadayda oo jannada ay usoo raaxo tagaane isqurxiyaa la leeyahay adigoo diyaar garow jannadii baa lasii diyaar garaynayaa qofka saa'imkaa jannadiisi waa lasii diyaar garaynayaa midda shanaad waxaa weye rasuulku calayhi salaatu salaam idaa kaana aakhiru leylatin habeenka ugu dambeeya bisha ramadaan markii la gaaro qafara allaahu lahum jamiican dhammaantood ilaahay subxaana wa tacala dembiga u dhaafaya nin marka dadka kamid ahay ayaa rasuulku waxau ku dhahay ahiya laylatulqadri yaa rasuulallah habeenkaas waxaa weeye laylatulqadriga miya markaasaa laa u dhahay nabigu sow arki mayso u dhahay dadka shaqaalaha alam tara ila alcumaali yacmaluuna dadka shaqaalaha way shaqeeyaan fa idaa fariquu min acmaalihim shaqadooda markay dhameeyaan wufu ujuurahum ajirkoodii baa la siinaya shaqada nin walba shaqadiisa hadda u dhameeyo mushaarkiisi wuu qaadanaya bisha ramadaan marka hadday noo dhammaato mushaar qaadadki weeye mushaar qaadadkaasna wuxuu noqonayaa ilaahay addoominkiisao dhan inuu xureeyo ay noqonaysaa sidaa hore usoo mari jira marka sidaas ayaa waxa weeye bisha ramadaan fadaaisheedu wax aad iyo aad u weyn ay tahay oo aan markaasi la soo koobi karin weliba marka hadda haddii ilaahay yidhaahdo kaasu waxa weeye waa darsigeeni saddexaad oo duruuseena ramadaanida kamid a darsiga afaraad ayaanu ku qaadan doonaa fadaa'ilu sawmi ramadaan hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu